in ka badan 36 arday oo ka qalin jibisay iskuulka Kobciya isla markaana dhameysatay barashada maadada caafimaadka ayaa xaflad siyaasadeed loo soo ogaasimay loogu qabtay hotel Altaqwa degmada Buloburti ee gobolka Hiiraan waxaana munaasabadaasi ka soo qayb galay maamulka degmada waalidiin macallimiin arday iyo marti sharaf kale oo lagu casuumay xafladani ugu horeyn qaar ka mid ah waalidiin iyo macallimiin ka soo qayb galay munaasabada ayaa ardayda qalin jibisay ugu hambalyeeyay dadaalka dheer ay geliyeen guusha maanta ay gaareen waxaan kaloon u hambalyeynayaa ardada mar labaad iyo mar saddexaad iyo mar afraad ayagoo kuwii la facay laamiga taagan oo qaarkood waxyaabo waalidku ay u dhaaf leeyihiin ay ku dhex jiraan na ay dhaafi waayeen ama dhaafeen oo la yaabanay leeyihiin xiisad xaka aadi intaanaad la egtee ay maanta ayaga ceel jidka la taagan yihiin iyo laamiga ardadana saasaan ugu hambalyeynaa inay fikirkaas xun ay qaadan haddana mar labaad waxbarashada sideeda barto macna ma yeelanayso haddii aysan niyad wanaagsan oo saafi ah hadayna ku dhisnayn ardayga marka hore waa in uu maaragtay uu ku talagalaa inuu wax barto ha ahaato maadooyinka kala duwan ama caafimaad ha aragto ama maaragtay waxbarashadan kale ha ahaato ardayga horta koow waa inuu horta u diyaar garoobaa in uu maaragtay uu wax barto waalidkana uu ku dhiirigeliyaa waalidka dawsa raali uga yahay ardayga anugiis inuu wax barto ardayga kaliya wax baran karo ardaygan haddausan u diyaarsanayn in uu wax barto macnaha wax ma baran karo ardaydii qalin jibisay iyo waxgarad ka soo qayb galay xafladda ayaa halkaasi khudbado kala duwan ka jeediyey madaxdiiyo mas'uuliintiyo mudanayaasho dhan martii sharafta joogtiyo arday macallimiintoo dhan rag iyo dumar intaan muuqata meesha wada joogta waad salaamantiin meel fog baan milicsanayaa waxaan idiin sheegayaa halkaan idiiga soo jeedinayaa dhammaan inaan caafimaadku uu yahay xaalad aad u wanaag badan ardada iyo macallimiinta iyo mas'uuliyiinta iyo dhammaan odayaasha aabbayaashu waa inay hooyayaashu ay kula tarbiyayaan in ilmaheeda caafimaadka si ay u kordhiyaan ay dalkooda iyo dadkooda iyo diintooda intaba ay ugu fahmaan waa in caafimaadka lagula tarbiyayo maamulka iskuulka Kobciya Cabdiraxmaan Owsad Maxamuud iyo Ustaad Ciidiid Axmed Jusle oo ahaa baraha ardada maanta qalin jibisay ayaa ka sheekeeyay marxaladii kala duwan ee ardada wax ku soo barteen maanta aad baan u faraxsanahay maadaama ardadii aan ku jihdo baalnay oo ku waqti bixinay ay maanta wajiyashooda laga dareemayo farxadii aad u fiican tahay marka waxaan halkaan farxad kula qaybsanaynaa waalidiinta ardada dhalay waalidiintaas oo soo dhabar adeegay ardadan maanta harkaan inay soo gaarsiiyaan waxbarashadu ma ahan dhammaad maxaa yeelay waxbarashadu waa sida badda oo kale ma dhahayno ardadeenna waa qalin jibisay waxaa leenahay ardadeennu maanta ayay qalin qaadahaysaa waxaa jirta saddex hanti aa jirta marka hanti oo adiga agtaada taallo maxaa ka mid hantida agtaada taallo adiga aad leedahay waxa waaye waa guri inaad laato lacag inaad yeelato marka intaas way baabi'i karaan marka laakiin hantida maguuraankee waa laba midkood ay noqon karaan marka waa midka adiga hantida aad maguuraanka waxa la waa waxaad adiga sadaqaysato aakhiro u hormarsato marka waxa loo yaqaanaa hantida maguuraanka loo yaqaanaa marka hantida kale to adduunka aan ugu guurin waxa kamid ah cilmiga aad barato cilmiga mar hadaad barato qalbigu kugu jiro adiga ma tihid qof faqiira ma tihid marka waxa tahay qof taajir ayaa tahay meel walba caalamka ka joogto waa lagu baahaya meel aan lagaaga baahnayn ma jira marka waxa kale oo jiro qof cilmi yaqaano iyo qof aan cilmi aqoonin ma sibna marka sababtoo ah macquulna ma noqon karaan xitaa iyo wadana isla mari karaan marka maxay ku kala jiraan laba qaanad ay ku kala jiraan marka waxaan rajaynayaa inaan waxbarashadeena sii wadno annagana waxa u taaganaanay hadii aan naanay macallimiintii degmada u soo waxbaratay inaan annagana dadaalkeeni sida u sii wadi doono oo arday inta ka sii badanna aan soo saari doono insha Allah saas aan rajaynaynaa ugu dambeyn gudoomiye xigeenka dhanka siyaasadda degmada Buloburti Jaliil Ciise ayaa wax lagu farxo ku tilmaamay arday tiradooda intaan gaaraysa inay dhameystaan barashada maadada caafimaadka waxa loo baahan yahay dadka wax bartay aqoonta leh cilmiga leh inay maaragtay samata bixiyaan ummadda ay samata bixiyaan dalka ay samata bixiyaan diinta ay samata bixiyaan waxaan mar labaad iyo mar saddexaad aan u hambaliyaynayaa ardada ka soo qalin jibiday macadka
caafimaadka hambaliyo 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 waxaan u hambaliyaynayaa waalidiinta ku dadaashay ku dhabar adeegtay inay ilmahoodu wax bartaan kuwa ayagoo gidaarada fadhiyo ayagana waxaan leeyahay hore u dhaqaajiya hambaliyo hambaliyo waalidiintana mid la mid aan leeyahay macallimiinta u istaagtay inay wax baraan ayagoo wax soo bartay degmada mugdiga ka saaraan u bixiyaan iftiin ayagana waxaan leeyahay hambaliyo 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 hore u dhaqaajiya waxbarashadiina iskuulka Kobciya ayaa noqday ilayska ardayda degmada Buloburti waxaana ka soo baxa arday ka dhisan dhan walba cilmi iyo baraatikaba taa oo sahashay durbaba inay ka howlgalaan goobaha caafimaadka ee degmada. Cabdisalaan Maxamed Ibrahim Cabdisalaan Habis Somali News Buloburti.